wuxuu ku dhiirigeliyaa in qaar dad ka mida xalaashaas cashuurta bixiya inay la baxsadaan ama aysan cashuurahooda bixin. walaalayaal waxaan ugu tartamayaa hoggaanka ugu sarreeya ee qarankeena maxaa yeelay waxaan u heelanahay inaan dib u soo nooleeyo ana soo celiyo gacanta shacabka Soomaaliyeed dadkii ka wakiil ahaa hanaantii maamulka waddankeena. haddii eebbe idmo waxaan ballan qaadayaa in aanu hoggaankaygu marna u dulqaadan doonin in mar dambe laga hor joogsado wakiilada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u dhaartay guushooda xilka ay u hayaan qaranka Soomaaliyeed. waxaa intaas soo raaca inaan hortiina ka ballan qaadayo in hoggaankayga haddii eebbe idmo dhexdiisa laga ogolaan doonin khilaaf midimidi ku taag carqalad ku noqda habsami u socodka mas-uuliyadda aynu u hayno shacabka Soomaaliyeed. haddii eebbe idmo maadaama aan anigu ahay musharax u taagan jagada ugu sarraysa qarankeena waxaan shacbiga Soomaaliyeed u ballan qaadayaa inaan intii awooddayda ah isugu geyn doono sidii aan wax walba uga horumarin lahaa arrimaha danta guud ee ummadda Soomaaliyeed. lagamana yaabo inaan ku lug yeesho wax ka baxsan danta qaranka haddii ay tahay midda gudaha ama dibadda. ma suuroobi doonto dano shakhsiyadeed oo ka dhan ah danta guud marna inaan ku lug yeesho. sida dadkoo dhan u wada og yihiin waddan aayihiisu waa dhallinyarada. marka dhallinyarada fariinta waxaan u jeedinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed. dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddii ay tahay waddanka gudihiisa ama dibaddiisa xeryaha qaxooti ama qurbaha waxa iminka la gaadhay waqtigii da'yarta Soomaaliyeed ay hanan lahaayeen dalkooda hooyo oo ay ka qayb qaadan lahaayeen dib-u-dhiska waddankooda. waxa ay ka qayb qaadan karaan hirgelinta howlaha shirkadaha wax soo saara, ku biiritaanka ururada bulshada rayidka ah, ururada siyaasadda ah, ama siyaabaha kale ee waddankooda ugu qaban karaan. walaalayaal waxaan jeclahay inaan xusuusiyo in aan nahay hal qaran, hal ummad oo midowday. waxaana hubaal ah inaan ka guulaysan doono caqabad kasta ama dhibaato kasta oo nala soo gudboonaata. si kastaba ha ahaatee kala qaybsanaantu waxay inoo keentaa taagdarro, fashil iyo burbur, iyo inaan ku dhacno bohoshii wixii aan jeclayn horumarka ummadda Soomaaliyeed. hadafkayga aragti ee aan halkan ka soo bandhigayo wuxuu ka turjumayaa xilligii cadaaladda, niyad samida, hufnaanta shaqada iyo maamulka wanaagsan. haddii aan
waxaan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan haddii eebba idmo fududaynta mas-uuliyadda adag ee aan ka qabanayo yoolka igaankiisa ee aan jaangoynta qorshahiisa 4 sano ee soo socda rajadii haddii la idmo walaalayaal waxaan hortiina ka caddaynayaa inaan ka dhamayn doono qorshaha siyaasadeed ee musharaxnimadiisa aan u diyaarahay oo u balqaadayo inaan xilkaan si wanaagsan u guto wasalaamu calaykum taasi waa intii ku saabsanayd sababta aan isu sharaxayo waxaa kalan jeclahay maadaamay goor dambays ka tahay oo dadkiina waqtigii salaada la joogo inaan soo koobo markaa waxaan idin kormarayaa 6 dugdhig ama qodobo waaweyn aan aaminsanahay marxaladda hortaalla ummaddeena Soomaaliyeed inay muhiim yihiin ta ugu horeysa waxa weeyaan sugidda amniga iyo xoojinta garsoorka ta labaad waxa weeyaan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed dib loo heshiisiyo inkastoo ay soo marnay muddo dheer iyo dagaal sokeeye arrintaas waa arrin muhiim ah baan anigu aaminsanahay haddii eebba idmo waan ku guulaysto tartankaas waxa aan qiimeyn weysiin doonaa sidii dadka Soomaaliyeed dib loogu heshiisiin lahaa waxaa kale oo qodobka saddexaad ah dib u soo kabashada dhaqaalaha iyo horumarinta qodobka afraad waa maamul wanaagga qodobka shanaad waa dib u dejinta qaxootiga iyo dadkii soo barakacay qodobka lixaadna waa siyaasadda arrimaha dibadda waxaan kormarayaa oo in yar oo xoogaa yar oo dheeraada inaga siinayaa 6 qodob aan ii sheegay arrimaha haddii lahayd aan u arko inay muhiimka yihiin ta ugu horeysa waxaan arkaa sida loo sugo nabadgelyada waddankeenna waxa kale oo sugi kara waa ciidanka dalka Soomaaliyeed marka anigu waxaan aaminsanahay in sidii loo tababari lahaa oo loo qalabayn lahaa ciidanka ummadda Soomaaliyeed ay tahay arrinta ugu muhiimsan ee waddankeena hor yaala waxaa kaloo aan aaminsanahay in cunaqabataynta hubka oo jimciyada uramaha ka dhexaysa ay saartay ay waddankeena ka qaado sidii ugu dhaqso badan haddaan u gudbo xagga cadaaladda waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay inay dib u soo noqoto kala dambayntii iyo sharcigii markaa sidaa daraaddeed waxaa muhiim ah in xukuumadda imaanaysa soo socota ay maxkamadaha iyo booliiska ay xoojiso si amnigii dib ugu soo noqdo waddanka haddii aan u gudbo qaybtii labaad ee ku saabsan dib u heshiisiintii siyaasadda waxaan taan hore inugu sheegay ay muhiim tahay in dadka Soomaaliyeed ay balo isugu yimaadaan garaadadooda caaqiladooda xildhibaanadooda iyo wixii waxgaradkooda oo ay ka hadlaan sidii dadku sami ugu wada noolaan lahaayeen haddii aan u gudbo dhinaca dhaqaalaha haddii lahayd ma waxaan anigu rajaynayaa aanan ku kalsoonahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee rajada wanaagsanna inay tahay dhaqaalaha Soomaaliya inay dib u soo noqonayo sida aad ogtihiin ilaah mahadiis waddankeenu hawlgolayaal badan oo dhaqaale oo wanaagsan buu leeyahay oo ay ka mid yihiin shirkadaha isgaadhsiinta iyo shirkadaha xawaaladda marka waxaan haysanaa asaas ay ku dhisi karno sida aad ogtihiin dunida waxaa dhisa waxa weeye waa bacamushtarka waqtigii hore dadku waxay odhan jireen meesha keliya shaqada loo doontaa waa dowladda dunidan casriga waa hadda joogta
waddan waxaa dhisoo dhaqaalihiisa kor u qaada waa baacmushtarka iyo tijaarada. waxaan anigu aaminsanahay haddii ay beegno in xukuumadda cusub haddii ilaahay inaan madax ka noqdo aan gacan weysiino dadka baacmushtarka ee Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed waa dad haybad leh oo ilaahay u siiyey tijaarada. haddii aad eegtid waddamada dunida oo dhan ilaa mahadii meel kasta dadka Soomaaliyeed guul bay ka gaareen. waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub ee imaanaysaa in ay u fududeyso dadka baacmushtarka tijaarada ku jira sidii ay baacmushtarkooda hore u sii dhigi lahaayeen oo aynan niyadjab iyo horeer u keenin ku ridi karta dadka doonaya inay waddankooda dhisaan. waxaa kaloo aan aaminsanahay siyaabaha dhaqaalaheena lagu dhisi karaa inay tahay in waddamada